بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل أمرنا كلها سهلا إن شاء الله مر لبعض أرضي وحن نسوق صلى الله عليه شابتر كود بيو فقه يا ودني مر كود بيسي وتوحيد كانوا تشيله توحيدك وحنا ما انتقادنا إن شاء الله تعالى موقف الأمة على البدعة والمبتدعة إن شاء الله وحنا نكسر هذا الله 10 كهورة بدعة iyo aqsaamteeda iyo ummadda muslimiinta ahu baash saameynta ay ku leedahay darsiga ka soo reeyay wuxuu ahaa nabiga kaleey salaatu wasalaam jacaylkiisa iyo dadka ugu dhawaa nabiga kaleey salaatu wasalaam oo ahaa saxaabada iyo saxaabiya leeyahda maantana waxaan qaadan doonaa mowqiful ummati ala albid'ah aw almubtadi'ah bid'ada iyo bid'a wadayaasha ummadda muslimiinta ahu ayadoon la kala qaadin culimadooda mowqifka ay ka taagnaayeen darsigeena ahdaaftiisa iyo ujeedadiisa waxa koow ka ah ardaygu inuu fahmo mowqifka ummaddu ka joogtay bidcada sidaas la mid ah ardaygu inuu barto inay jiraan kutub lagu qoray oo ka digaysa bidcada iyo dadka bidcada ka shaqeeya qodobka saddexaad waxa weeye ardaygu inuu ka fogaado waligiis iyaalihiin oo ka cararo si guud uga cararo iska ilaaliyo wixii diintiisa iyo aqliyadiisa waxyeelaya oo aakhir iyo adduunba saameyn ku leh oo bidca ah laano bidcadu sida dabku uu cuno xaabada bay u cunaysaa acmaashaada rasuulka waxa lagu yiri kaleey salaatu wasalaam la in ashrakta la yahbadanna amaluka wala takunanna min al-khasirin ummadana waxa lagu yiri walaw ashraku la habida anhum ma kanu ya'malun haday shirki ku dhacaan amalkoodu waa baaba'aya marka wixii acmaashaada ilaahay ugu dhawaanaysa waxyeelaya waa in ardaygu iska ilaaliya kuna dadaala waligii aleehis ardaygu iyo qofka muslimka ah inuu cibaadadiisa iyo aqeedadiisa u sameeyo raadraac iyo tixraac meel waa inay ku tiirsantaa waayo diintu ma aha jaantaar rogan iyo meeshaad ka soo gasho ka bilow waa tawqiifi oo wada la maro way leedahay wada waasaca oo la maro bay leedahay haddaba su'aasha isweydiinta badan waxa weeye ummadda muslimiinta waxaynu niri mowqif adag bay ka qaateen mowqifkaas muxuu ahaa mowqif umma al-islaamiyya min al-mubtadi'ati wa manhaj as-salaf fi ar-radd 'alayhim wa mowqif as-salaf min al-mubtadi'ah ما زال السلف يرددون على المبتدعة يردون على المبتدعة سلفك منذ إلهي سبحانه وتعالى نبي محمد صادري إلى إيه السلف كقرون تفضل بنيد صدح قرنيه النبي الشاقي أنت وجود بيسي سلفك كمزول مالنا كما قابن حمينا كما استاجن ساعدنا كما ضاهين إن بدعاء هرشوجان سيدي نبي محمد بهرشوي نبي محمد الصادري وحلا دجالم كفري يا شرك ولا دجالم كفرك iyo shirki ilaahay wuxuu ku zuuliyay gacanta nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam iyo dadkii markaas garabka u ahaa kadib waxa dadka soo dhaxgalay muddo dheer kadib bidco iyo waxyaalihii nabigu la dagaalamay qaar kamid ah iyo dad sheegay inay diinta wax kale ku soo kordhiyeen salafka uu istaagay saxaabada ugu horeeyaan taabiciinta ku xigaan taabiciinta ku xigaan waan arki doonaa wayunkiruuna calayhim bid'ahum wayamna'unahum waxay ka hor joogsadeen oo u diideen min muzaawalatiha in la boombooniyo oo bidcada la wadwado oo maartay qimba la gaarsiiyo waxaynu ognahay wax kasta oo la boombooniyo suuq loo sameeyo oo la wadwado meel bay gaaraan walaw marka dambe iska soo tafgaabtaano iska soo baaba'aan waylayka namaadij min dalik bal tusaalayaal arinta ku saabsan aynu aragno maalmaha kamida baa gabadha la yiraahdo Ummu Darda oo saxaabiyada ah waxa uu soo galay ninkeedii Abu Darda muqdiban asagoo xanaaqsan oo si u yara caraysan buu u soo galay faqaalat lah waxay ku tiri ma laka ya Abu Darda Abu Darda maxaa ku dhacay say wax ka yihiin maxaa jira maxaa ka xanaajiyay faqala wuxuu yiri Abu Darda wallahi ma a'rif fihim shay'an min amri Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa annahum yusalluna jami'an dadkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam wixii uu uga tagay way ka dhex bixeen salaadun baa ku hartay waa saxaabi nabi kaleey salaatu wasalaam wax yar buu sii mootay saxaabadu ka tagay baa noo
xoogaa wuxuu ku arkay in maartay bal khilaaf yar iyo waxyaalo cusub iyo wuxuusan xilligii nabiga arki jirin ay ku soo koreen ummadii u arkay arintaas uu ka xanaaqay oo ka xanaajisay Abu Darda faqaal markaasuu yiri wallahi ma a'rif fihim shay'an min amri Muhammad sallallahu alayhi wasallam dhaqankii nabiga uu nooga tagay iyo hadigiisii iyo diintiisii dadkii waa ka tageen waxa kaliya uu ku haray salaadii baa ku haray jamaaca ku tukanaya maxaad moodaa marka maanta meesha inagu aan joogno nabi maxamed oo laga yaabo dhowr sano sii mootay yahay bay saxaabadu sida ahaayeen oo wax yar oo soo dhex gala xanaaqa iyo qadabka iyo carada noocaas ka muujinayeen oo ay ka taagnaayeen waliba mowqifka ah dadkii salaadu baa ku hartay wixii kale waa ka tagay soo ma jeedin halkaas waxaad ka arkaysaa mowqifka saxaabadu ay ka taagnaayeen dhacdo kale nabiga imaam Malik imaam Dar al-Hijra rahimahullah baa waxa uu yimid maalin nin baa u yimid جاء رجل إلى إمام مالك بن أنس رحمه الله وإمام دار الهجرة وإمام كي فقيه مقالة مدينة وإمام وين وكم ده أئمة المسلمين وأفرت مذهب معروف كهليقان متكمده إمام كودو ومالكية إمام كودو نبأ يمد وحو كيري من أين أحد حاجة حاجة كحرتا إمام مالك حاجة حاجة من كحرتا مركزوه كجري من الميقات الذي وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحرم منه ماشي النبي محمد حاجة كحرتي تذكر وجدي هلكا كحرو هذا وقتين مركز لقى صوت تقول مقالة مكة مركز لقى صوت تقول مدينة منورة ومدينة اللي جاي ماذا الله صعد مكة نبي مال مدينة كأجدو أيوه وسبيدت كي ماذا dadka ka yimaada Madiina oo Makka u soo xajka xiranaya halkaas uu waqtiyo wixii halka xajka ka xirta macna halka lama dhaafi karo xagga looba dhaafi karo halkaasna xagga laga bixsan karo walaal culimadu yiraahdeen sharciyan way banaantahay in xaggaas miiqaadka wixii xagga ka xiga laga soo xirto laakiin xagga Makka looma dhaafi karo marka wuxuu ku yiri Imaam Malik Madiina jooga Madiina ka tag oo miiqaadkii nabigu meeshuu nabigu ka xirtay xajka ka xiro halka ka sii wado halka marka ka dhaqaaq ninkii uu la hadlay wuxuu ku yiri ka war haddaan halkan ka xirto madiinadaydan oo meeshiiba aan sii maro anoo xaajiye midii baa ku jira haddaan meeshiiba sii maro anoo xaajiye imaam Maalik wuxuu ku yiri aniga su'aashaas jawaabteeda ma hayo taadi weydiisay taasu ma hayo taadi weydiisay taa anu garan maayo halka ka xiraan ku yiri halkaas nabigu noo jideeyay halka haddaad wixii xagga ka xirato anigu jawaabteeda weydiisay taa ma ninkii waa xanaaqay wuxuu yiri war khayr aan kororsaday miyaad igu canaanaysaa oo igu maagaysaa oo igu dhibsanaysaa ilaa halka ina xaj ka xirto oo aanu adkaartii iyo talbiyadii iyo xajkii wada meesha sii maro waa khayr aan kororsaday faa'iido mar walba faa'iidaan wata marka ma khayrkaas aad igu maagaysaa markaasuu yiri maya kugu maagi maaye akrah alayka alfitna waxaan kaaga baqayaa inaad ku dhacdo fitan wala fiirsaya markaasuu wuxuu yiri wa ayu fitna fi izdiyad alkhayr ما خير كرس فتنة كتمادا خير كرس ميا فتنة كتمادا قال مالك وحير إلهي بوحو ليه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ورأسك إلاليين النبي محمد أمر كيسي هدي كيسي طريق كيسي جهد كيسي عدة خلاف يسا إنه يكون على فتنة هسك إلاليس وأي فتنة أعظم من أن خصصت بفضل لم يخصص به الرسول صلى الله عليه وسلم ما حيتها فتنة كوي يدباتها كوي إنها تشديسه أو كنته فضل إيه أجر إيه حسنات النبي محمد شديد وفرسيه فقال الرجل فإن أحرمت من أبعد منه مالك سوكي سادان كحر تكورا فقال مالك لا أرى ذلك أنا قد أنا شغل كبلي إمام مغد حكم كذا تاجرا ماي فقال ما تكره من ذلك ما حد يدب سنة ساعة قال أكره عليك الفتنة لبعتنا كلنا عيا قال وأي فتنة في ازدياد الخير خير بان كرر صدي هل كان كحرتي خير بان كرر صدي لبك أن هي يقول عيا محويه قال وأي فتنة في ازدياد الخير قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وأي فتنة أعظم من أنك خصصت بفضل لم يخصص به الرسول صلى الله عليه وسلم وفرسيا إن هذا كانت فضل النبي محمد كينين أو تخصيصه أو جديسه أو دين كدكته فتنة كون محيط وفرسيا فلما أنت حكيت شو ده مركب ما أنت حكيت شو وفرس النبي محمد عليه الصلاة والسلام ذاتك لا تعاصري أئمتها عصر كله نولا
baa sidaas ahaa oo waxa weeye wax yar oo waliba aan aad u sii weynayn oo haddii hadda la sii buunbuuniyo laba yaab inay jaayis iska banaan tahay way mowqifka ka qaateen aimadu ka qaateen xagee bayna marka inagu maanta inagu xagee ka joognaa arintaas xagee ka joognaa waa gartay وعن سعيد بن المسيب رحمه الله مالين مالمها كميده نك تابعيغا لو يقانو فقهاء السبعه ku jiray سعيد بن المسيب رحمه الله ورير مدينه asaguna aha oo taabici ah oo saxaabadii waaweyneed wax ka bartay saxaabadu wax ka bartay wax kamid ah Anas ibn Malik Abu Hurayra kamid ah asaguna waa taabici ah أنه رأى رجلا يصلي بعد طلوع الفجر أكثر من ركعتين wuxuu arkay nin markii salaada subax waagu bariyay tukanaya laba ragcadood wax ka badan asalku waxa weeye hadii waagu bariyo oo salaada subax adinka dambe la adimo adinka dambe salaada subax hadii la adimo rasuulku wuxuu inoo jideeyay laba ragcadood oo uu yiri khayrun min ad-dunya wama fiha ad-dunyada iyo waxa ku dul noolba way ka khayr badan waa laba ragcadood ragcatay al-fajr baa leeyahay mid saddexaad lagu dari karo mid afraadna lagu dari karo lix laga dhigi karo ragcad kaliya laga dhigi karo laga yarin karo laba nabigu jideeyay nabiguna wuxuu yiri khayrun min ad-dunya wama fiha adduunka iyo waxa saaran ba labadaas ka khayr badan waxay ka horeeyaan salaada subax inta la gelin tafaradka bay ka horeeyaan nin ma wuxuu nabigu arkay ninka la yiraahdo Saciid ibn Musayyib nin ragcadii badsaday oo afar ka dhigtay saadkii buu ku jiraa ninkaana soo galay afar ragcadood buu tukay fanahahu warkadaab ركعتي markuu ninku tukaday yakthur fiha rukuuca wasujuud sujuudi buu dheereeyay rukuucdi buu dheereeyay fanaha warkada ka jooj afar ma ahane waa laba war laba tuko afarta iska daa faqala ya aba muhammad abihiisu Saciid ibn Musayyib ku yiriisay waxa loo oran jiray aba muhammad oo wiil muhammad yaado dhalayo saasa kunyo u ahayd naynastiisa ahayd aba muhammad wuxuu yiri yu'adhibuni allah ala salah إلهي ما الصلاة بيقول عذابية وابا الصلاة إلهي بابن يقول له وادي ووحي إلهي اللي يقول له وين شري أذكار بان أخري قرآن بان أخري والركوعي والسجود صلاة بان تكري ما واحد هذا صلاة يقرب بس إن إلهي صلاة يقب سنة يورني محل تكتي نار تقل وتكتي مساسة يقرب بس قالوا هي لا مي ساكا قرب ما ولكن يعذبك على خلاف السنة إلهي وحو كوغو عذابيا صلاة إلهي ما أنت قيامة كوغو عذابي مايو صلاة كوغو قبصان مايو صلاة محادو توكتنا النار كوغو ميس لكن وحا كوغو عذابيا على خلافك السنة سنة خلاف لماذا على خلاف السنة سنة خلافتي بالوغو عذابي إلا صلاة توكتي سنة النبي موافق سنة طريق سحنا ما هيصو عبادته وتوقيفي عبادته وحي لا دحي تدهو غانك وحي لوغا ديدو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكبدي وضع عباد الله سبحانه وتعالى بعبادنا جديي نبي محمد بن نوغو سو ديبي اسغان كغا دايرينا اسغان ku raacayna wax jeebkeena la iimaanayno waan khilaaf sunna weeye waan lagu cadaabaya salaada bidaat marka la fiirsho salaada bidaat wax ma qabto shakhsi salaada daatadeeda salaad ahaaneed wax ma qabto laakiin haday salaadu dhacdo booskeedii loogu talagalaan ahayn waa lagu cadaabaya salaad ahaan lagu cadaabaye sunna khilaafnimada iyo meesha ay dhacday baa lagu cadaabay هاي فرسية هذه النماذج تصاليال انت ساكو غفران ايها الطلبه ارضيو تصالي انت ساكو غفران واتهي عباده هذا اصل الصمت وما زال العلماء ينكرون على المبتدعه في كل عصر والحمد لله علماء كما زولين عصر كستا يحل كستا ان السنه الدفاعيه او تاغيين ومالين يهمين با السنه الدفاعيه الى انت تاغي منهج السلف في الرد على اهل البدع سلفك صحابته ugu horeeyaan ya rasuulka taabiciinta ku xigaan taabiciinta ku xigaan waman tabi'ahum bi ihsan ila yawm ad-din ku xigaan manhajka iyo dariiqa ay u mareen difaacida iyo isortaaga iyo inay hor joogsadaan bidcada sunnadana difaacaan manhajka ay u mareen macnaha dariiqa ay u mareen wuxuu sheekhu manhajuhum في ذلك المنهج المقنع المفحم المبني على الكتاب والسنة ومنهج لغو قنعي كرو بقل المفحم عد كستا او waxyeelo isku dayda inay waxyeelaysana soo afjara kalmada afxama waa afjaridu waa waxa qofka soo afjara oo uusan qofku haduu isku dayo inuu ka hor yimaado uusan waxba yeeli karin المبني waxay ku dhisantahay على الكتاب والسنة كتابك إلهي iyo sunnada nabiga kaleey salaatu wasalaam
أي كل سنتين حيث يستدلون بالكتاب والسنة على وجوب التمسك بالسنة كتابك إلهي يا سنة النبي بدليشانية هذا واحد عجيب قف إلهي كتاب كيسي يا سنة النبي محمد قف هايستا إن أتكرر يسوع أما الله مولانتو أما الله ضد أما أترى أكرر تصاب خلاص كتابك إلهي قف قادوا هايستو سنة النبي أنا هايستو وحكلي وكاملين وحويا الاتباع إن تكون تاجرت أو كل رعد أو كل قرب استكتو لأن منهج كيسو ومنهج بقل قف كستا أو وحوي لها أنا صحن oo wadada saxda ah waxa kaliya laga raynaya wax weeye kitaabka Ilaahay iyo sunnada Nabi Maxamed haysata haday jawaabtu tahay waa boqol haday tahay maya waa gartay wanahy aan albid'i wal muhdathat ijmalan inay hor taagan oo u diidaan dadka oo ka hor istaagaan muhdathatka yala la soo kordhiyay oo diinta lagu soo kordhiyay iyo bid'a ilaa diintu waa dhameystiranta al-yawma akmaltu lakum diinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam diinan ba Ilaahay subhanahu wa ta'ala diintu waa dhameystiranta دينتو معها ما قفل بجاب كلا صباح معها دينتو الدين لما يستر بعد الله بالكتاب كيسا كل ما يستر ما فرطنا في الكتاب من شيء وما كتاب كلا كمان مغن سو ما تشيدي فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وحي نجا هري يا واحد نجا دنبي يا واحد دحدنا بدينته وكنا مسترنته ثم يردون شبه المبتدعة وينقضونها كتبنا وحي استاجن سلفكم إني بريان شبهة اسموتيسك مبتدعة يا ذاتك بين لا ياشا أيوة وينقضونها أي تبيان وقد ألفوا حكى قرين المؤلفات الكثيرة في ذلك كتب رمضان بالغ قري كتب رمضان أي على قري كتب ترد وحى لجور الدي ولجور استاجي من كتب العقائد على المبتدعة في أصول الإيمان والعقيدة ذاتك مبتدعة أو شر وضياشة وبلايا وضع كتبت أي كقرين أرنتاس أو كبونبونيين أو كودودين ayaa lagu radiyay oo lagu horimido waaqart sidoo kale waa alaf kutuban khaasa fi dalika kutub gaara oo khaasa oo arinta ku saabsanna waa qoreen dadka wax ka qoray waxa kamid ah imaam ahmed rahimahullah kitabkiisa caanka ah ee leeyahay magaciisa ar-radd ala az-zanadiqati wal jahmiyya ar-radd kitabkii lagu radiyay كتابكي لوجو هر استاجي الزنادقة دين لا وياشا زنديق على يغنى ودر دينود وحلا لو حركة دينه كوا دين لا ووي دين ما هيستو هي جهمية ده نمك عراق الصباحية نك شيطان كهيا جهمي ابن صفوان وبضح له عقيدة بعض الكوتين وجب يقول بعقيدة خلطان الإمام البخاري رحمه الله كتاب وقري ومارتي المعتزلة كل ديها يقول عيسى خلق أفعال العباد كتاب وقري معتزلة ده بكتاب كاسن لو ردي هي ابن قتيبة رحمه الله وحو قرأ سونا كتاب لهذا الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبه الاختلاف في اللفظ كتاب مسمى عليه الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبه في حل قاعد لتشوغيو ركلته وأيمذا كمدون يقول كتاب بيك قرين وحكم عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية أردقس ابن قيم الجوزية محمد الشيخ شيخ الإسلام مجدد العصر محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله أجا سونا كتاب قري وغيره تذكر فربضان من رد على تلك الفرق وعلى القبورية وقلات الصوفية سيدو كلاته وحقاد تذكروا وحلوه قري كمده قبوريين إلا تطبع قبور مسكدوا التاجن قبور بلغدوا لغاتي الله حباشاس بمجالد السي حبال كفايدس يا حبال أذن قفك كوتشي ربع كان يا نار وحو كوتشي ربع كما يسال قال يا مسلم قال على العذابيه هي انه قال ما كل انت اسلام تنقول ورك كما وايو قلبك الهي سبحانه وتعالى ilaahay baa qalbiga daalacda qofka markuu dhimanayo ma muslim buu ahaa mise gaal buu ahaa waray wuxuu ahaan jiray iska daa aduu warka ma hayso qofkan qalbigiisa gelimaysa xabaashta inaad dul taagnaato yaa ku maxaa ka faa'idaysa maxaa ka soo qoranaysa waxba uma tari kartid waxna kuma siyaadin kartid waxna kama dhibi kartid inaad xabaan iska dul taagnaatid iyo qulaat suufiya la iskuma qaado suufiya qaar fiican baa ku jira oo waxa weeye waxaas ogolayn laakiin qulaad suufiya dadka tagay oo waxa weeye qulaad ah xuduud dhaafay oo qaarkood raniyo salaadihi baan la koriyay soona la kuma leh waxa weeye anagu waxa yaqiin baanu gaarin heer sare waxaaso wax jira maaha kutub fara badan ayaa laga qoray
كتبت laga qoray waxa kamid ah Imam Shaatibi kitaabkiisa al-Ihtisam للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة حكمده اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتاب كاس اقتضاء الصراط المستقيم وشيخ الإسلام قري هل جزء هل مجلء واسكوينات آد وين بوحو كغا الله بدعة كلية مطبوع هلي بدعة كلية وحكمده إنكار الحوادث والبدع لابن وضاح رحمه الله تبارك وتعالى كتاب كاس قري ابن وضاح ولما إنكار البدع والحوادث waxyaalaha cusub dhacdooyinka cusub oo diinta lagu soo kordhiyo iyo bidcooyinka gacan ku samayska qaabka looga hortago oo loo horjoogsado al-baa'ith ala inkar al-bid'a wal hawadith ibn Shaamah ba asaguna ka mid kitaabka leeyado al-baa'ith ala inkar al-bid'a wal hawadith ayza ya kutubta laga qoray kutubtaas walilah alhamdu waa madbuuc way taala dalkeena kullu hal kitaab dalkeen laga waayo ama maartay hadii hada internetada la galo laga waayo kuma jiro waa heli kartaa sida culimadu hadleen kutubta casriga ah laga qoray waxa kamid ah iyaguna oo casriga ah joogo umada waxliyada dambe boqolkii sano u dambeeyay laga qoray waxa kamid ah kitaabka loo yaqaan al-ibtidaa' fi madar al-ibdaa' fi madar al-ibtidaa' li Sheikh Ali Mahfoud rahimahullah waxa kamid ah as-sunan maxa sunnah wal mubtadi'at maxa bid'ah المتعلقة مركز لها بالأذكار والصلوات وحقري محمد ابن أحمد الشقيري الحوامدي رحمه الله وحكم رسالة التحذير من البدع للشيخ العلامة عبد العزيز ابن الباز رحمه الله تبارك وتعالى وحكم القول المبين في الرد على المبتدعين للشيخ عبد الله الخليفي رحمه الله كتب تاس وكتب لهلكر وين هبونتها أرضك ويكون هبونتها أنتو دائرتها دائر يريها waayo inuu waxa la yiri man shabba shay an shaab ali qofkii shay ku dhalin yar waa ku gabooba inta marka balaayo iyo bidca iyo khuraafaad ku weynaan oo konta sano 6 sano ku gaarin inta yar tahay inaad aqeedada toosiso oo aqeedada saxdo oo aqeedada ka dhigto aqeedo tii nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiis aad bay waxay kuugu tahay muhiim ardaygu marka inuu isku mashquuliyo inuu diinta barto diinta islaamka inuu barto oo cibaadada barto oo aqeedada barto oo ardaynimadiisa uu qayb ka siiyo ardaynimadaada inaad wada siin adduunyo kaliya ee aad ardaynimadaada qayb ka siiso waxa loo yaqaano cibaadadaada iyo diintaada ayaa muhiim ah casharka asiladiisa iyo su'aalaha ugu dambeeya insha Allah ta'ala waxa weeye ma mawqifu al-ummati ala al-mubtadi' ummata muslimiintu bid'ada iyo bidca wadayaasha dadka bidcada boonbooniyo bidcada ka shaqeeya mowqifka ay ka taagan yihiin muxuu su'aasha labaadna waxa weeye ma manhaju salafi fi ar-radd ala al-mubtadi'a salafku manhajka ay u mareen markay kutub ka qorayaan ama radiyayaan ama is hortaagayaan bidca wadayaasha manhajka u mareen manhajkaas u talo muxuu yahay manhaj saawi ما منهج كل سنة كتاب إلهي وسنة رسولك عليه الصلاة والسلام لو كل سويه مسوى منهج مسكر رأيه مسكح الله كأنه كعنكم سما يسوي اكتب بالوح كقر اكتب 3 صدح كقر من كتب القديمة مع ترجمة أصحابها كتبتي هراء وإنه كسوة هذا الله صدح كمير قر مع ترجمة أصحابها رجع قرينا حوجع فاهنا ايش كل شيء مقعيس وصدحاني بالحوجع فاهي اكتب 2 من كتب العصريه ايضنا كتبت عصريه دنبه واجي دنبه لا قراي boqolkii sano u dambeeyay tabta laga qoray iyagana raadi laba kamid ah iyo raga qoray iyagana bal insha Allah ta'ala waxbaad ka taaban doonta insha Allah ta'ala halkaas ayuu inoo joogaya ilaahay idankiis khayr badan baan in rajeynaya insha Allah kuwi guuleystay aqadiyan wa aqliyan wa ilmiyan ba ilaahay inuu ka dhigo wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh